السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad asxaabtaydii waa mar kale iyo walaalkiin Axmed Xirsi ama Axmed Showqi mid ka taqaanidba. In muddo haddana isma soo hor fadhiisan. Ciid mubaarak ayaan leeyahay dhammaantiin. Maanta waxaan jeclaystay inaan sidoo kale nila wadaago maasooyin ama aragtiyaal aan anugu qabo. Aragtiyaasha ayaan jeclahay si maanse aynan usoo gudbiyo. kadib waxaan ku xigsiin doonaa maaso qiso oo kale ah sidii qiso u dhacaysa. Haddii aad horey ila sii joogtay aad ayaad umahadsan tahay. haddii aad igu cusub tahayna youtube-ka iyo page-ka igu soo biir. waa walaalkiin Axmed Xirsi ama a Axmed Xirsi ayaa ku qoran labadaba. youtube-kana a Axmed Xirsi baa igu qoran. facebook page-kaad iga daawanaysidna ama youtube-kaad iga daawanaysidna sidoo kale Axmed Xirsi baa igu qoran. igu soo biir walaal waa mahadsan tahay. ta koobaad haddii aan ku horeeyo ama hordhaca koobaad haddii aan galo, waxay u dhici doontaa sida tan. ciwaankaygu waxa ka dhigay ama ciwaan aan ugu doortay giraantu wareegta weeye. giraanta waa lawada garanayaa mate kulli magac kale haddaad u garanaysid. noloshu waa sidii giraan oo kale ama duureyso baraadhaha iyo wanaagga, sidoo kale dhibta iyo nolosha adagiba way isdaba wareegaan. waa sida giraanta oo kale. farxadda, murugada, qosolka sidoo kale waa giraan isdaba wareegto oo nolosha wax suganba ma jiro. giraantaas ayaan ku dhex nool lahay. marna waan faraxsannahay, mar waan murugaysannahay, mar waan qoslaynaa, marka waa sukan soo dhiidhiibaysaa. marka nolosha caynkaas ah ayaan jeclahay inaan kuu sawiro siday tahay. waa aragtidayda. giraantu wareegto weeye. galabtu waarta maaha. galab haddii ay timaado, galabgaab cadceedda ay soo dhawaato inay dhacdo, galabta mid lagu waaraya maaha. waqti badan masi joogayso, saacado ayay leedahay, waa wax tegayo. giraantu wareegto weeye. giraanta waxa kuu cadaynaysa inay wareegto tahay. galabtu waarta maaha. galabtu mid lagu sii sugnaanayo maahan. guhaada habeen ma raagto. habeenku siduu doono hadduu u madoobaado, hadduu u dhibaato badnaado, haddii uu balaayadeedii iyo bahalaheygii iyo xumaantiisu hadduu habeenka ba-an yahay, maaha mid raagaya maaha. guhaada habeen ma raagto. cabsida laga qabo habeenka iyo madowgu mid raaga maaha. gudcurku mid joogta maaha. gurcodkaa madow ama gudcurku si loo yaqaano gurcod ama gudcur, mid waaro uu taagnaada maaha. markaste waa wax tegayo. caddaa soo galalaclaysa iftiin baa gaadho koonka. madowgii iyo dhibaatadii iyo wixii oo dhan waxaa kaxeeya iftiinkaasoo laba ah. inuu habeenadan haddii ay madow ahaayeen ama gudcur ahaayeen ay dhibaato badnaayeen, habeenada ku xigo inuu dayax soo baxo caddo noqoto oo madowgii iyo mugdigii laga raysto. caddaa soo galalaclaysa iftiin baa gaadho koonka. adduunkii oo dhanba iftiin ayuu noqdaa. dharaar baa gebi daboosha. habeenkiiba waa laga tagay oo dharaar bay noqotaa. gawaarsi habeen dhibkiisa. habeenkii gawaarsaday ee dadka dhibaateeyey aadka u madoobaa waxaa ku xigto dharaar cad baa ku xigto. madowgii iyo wixii oo dhan way tagaan. haddaba waxaa uga jeedaa xaaladda aad ku sugan tahay waxaa caddaymo u ah inaanad ku waarin. waqtiyadan isbabedilaya. madowgii caddaa imanayso, dayaxiibaa soo baxayo, dhulkiina waad arkaysayo xumaantii iyo madowgii baa ka tegaya. haddii kale dharaar baaba imanayso, habeenkiiba waa laga tegayaa. daawadaha walaalkay daawanayo hadda xaaladda aad imika ku sugan tahay, haddaad faraxsan tahay, haddaad murugaysan tahay, haddaad daawacan tahay, haddii aad wax laadahay, haddii aad hanti haysatid, iyo xaaladda hadda ku sugan tahayba mid lagu waaraya maaha. giraan waaye, way wareegaysaa, wax kale ku xigayo. haddaba waxaan uga jeedaa araarta intaa lacag usoo tirinayaa. gaf kaa dhacay beri horeeto mar buu gooyaa naftaada. gaf kaa dhacay beri horeeto mar buu gooyaa naftaada. garaadku markuu shaqeeyo
garaadku markuu shaqeeyo gob bay noqotaa arwaaxdu. garaadka bini-aadanka hadduu shaqeeyana waxay isku bedeshaa gob bay noqotaa, arwaaxdii baa gob noqoto. gefkaa dhacay beri horeeto mar buu gooyaa naftaada, garaadku hadduu shaqeeyo gob bay noqotaa arwaaxdu. gefkiyo xumahaa yaraada, farxad baa gebi hadhaysa, qulubta gargaarsanaysa, hibaduu gullu ku deeqay oo garaadkii ah. haddaba haddii garaadka qof si fiican uga adeegsado, xumaha iyo gefka iyo dhibaatada yaraada, farxad baa gebi hadhaysa, qulubtii oo dhan oo dad isku caloolsan bay noqdaan. hibadu eebbuhu uu ku deeqay oo garaadkii ah haddii si fiican u adeegsadaan, xumihii iyo waxaa dhammaada, calolxumadii iyo isdagaalankii iyo xaasidnimadii iyo xiqdigii iyo laba qalbi oo isku bugtay iyo isdhibaatayntii iyo wixii oo dhan baa dhammaata. markay garashadu siyaado, aqoontu markay garashadu siyaado, dadkaa gebi kuu sinaada. waxa aan maansadan uga baahnaa inaan bulshada ula soo wadaago waxay ahayd, garashadu markay siyaado ama aqoontu markay siyaado, dadkaa gebi kuu sinaada. dadkaa walaalo ku wada noqdo, kanaa reer hebela, kanaa ina maxaya, kanaa ii dhow, kanaa iga dheer, kanaa sidana, kanaa qoladana, kanaa qabiilkana, waxaa dhaway baaba-an. markay garashadu siyaado, dadkaa gebi kuu sinaada. waxaad garataa ujeedka guluhu oo abuuray koonka. ilaahay koonkan wuxuu u abuuray ayaad garataayoo cibaadadii inaa loo abuuray dadka, oo in dadku cibaadaystaan ayaad garataa, aqoontaadaa siyaadaysa. kadib waxaa dadkan looga dhigay qabiilada ama qoloqolada looga dhigayna waxaad garataa inay tahay litacaarafu, saa la iskugu garto. uu qofna qof ugu gafin ayaad garataa inaan looga jeeday. markay garashadu siyaado, dadkaa gebi kuu sinaada. waxaad garataa ujeedka geygii loo uumay koonkana wixii loo abuuray waad garataa. qofkaa gaabsaday warkiisa, afka kaa xidhay, hamoodin inuu ku gooyey, inuu kaa goostay hamoodin, oo uu kaa jeestay oo ku nacay. qofkaa gaabsaday warkiisa, hamoodin inuu ku gooyey, gaax iyo uu xoolo haysto. qofka weliba inuu hanti kaala aamusan yahay, uu isagu nimcad iyo badhaadho ku jiro, hamoodin. qofkaa waxaa dhici karta inay dhib haysato. qofkaa gaabsaday warkiisa, hamoodin inuu ku gooyey, gaax iyo uu xoolo haysto. ninkaasaa ula soco. agoonkan garab la siinin, gargaar waayee silcaayey, mar buu gaadhaa hantiile. go-aanada kama dambaynta, guuluhu gacantiisa geliya, gartaada mar buu hogaamin. halkan kale wuxuu ku leeyahay ninkii kaa aamusay ee kaala aamusay hadalkiisii ee kaa fogaaday, hamoodin inuu xumaan uu kaala aamusan yahay. sidoo kale hamoodin inuu haysto hanti iyo badhaadhe inuu la aamusan yahay. waxaa kaloo kusii jirta, agoonkan garab la siinin, dad baa jira ciilana ah, dhibana ah, waalidkoogii geeriyooday, dadka ku dhex nool, la liido, cidi garab u tarin, meesha lagu arkana lagu dhibaateeyo. agoonkan garab la siinin, gargaar waayee silcaayey, bulshada dhexdeeda ku silcaya dhibanaha ahaa, mar buu gaadhaa hantiile. mar buu hantiile noqdaayuu ilaahay siiyaa. ilaahay kuma adkaynaya. noloshan waa giraantii aan sheegnay. shalay hadduu dhibana ahaa, shalay hadduu dadku ay dhayalsanayeen, shalay haddii la dhafoor taabanayay, shalay haddii xaqiisa la cunayay, maalin buu ilaahay gaadhsiiyaa hantiile, oo isagu gacantiisa ilaahay wuxuu geliyaa. mar buu gaadhaa hantiile. go-aanada kama dambaynta, ciddii dhul ka dhashay ama ilaahay uu ka beeray ee shalay dulmaysay, ee xaqiisa cunaysay, ee dhaawacaysay, waxaa dhici karta ilaahay markuu isaga hantiile ka dhigo inuu isagoo dhan mas-uul noqdo, oo faamilkaa dhan ama reerkaa dhan isagu maamulkooga gacanta ku hayo.
qaraarada kama dambeynta ee masiiriga waddan dhan baa dhici karta in ilaahay hogaamiyo uga dhigo oo la hoos joogsado oo qaraarka kama dambeynta inuu isagu gooyo. shalayna wuxuu ahaa dulmane iyo dhibane iyo qof garabla. mar buu gaadhaa hantiile go-aanada kama dambeynta guluhu gacantiisa geliya oo isaga dhan baa maamulo noqdo. gartaada mar buu hogaamin. shalay adigoo dulmayay, shalay adigoo liidayay, shalay adigo oo dhibayay ayaa dhici karta inuu gartaada isagu halka soo fadhiisto markii wax lagugu sameeyo uu isagu kuu doodo oo xaqaagii kuu soo rido uu isagu kuu cararo. shalayna adaa dulmayay oo dhibayay. la socon ku leeyahay taas waa giraan xaaladda kale inay kugu dhicin. gacal waa xadhig la goynin. gacal waa xadhig la goynin. xigtana gaashaan oo hayso. dadkuba geedaha la simane go-aanso midkaad jeclaato. halka wuxuu ku leeyahay gacal waa xadhig la goynin. gacal waa xadhig waa aan la goyn karin gacalkaagu. xigtana gaashaan oo hayso. xigtana garab iyo gaashaan iyo difaac u hayso markii lagu soo doonto, markii dhiiggaaga la daadiyo, markii xaqaaga la qaato dee xigtadaada kusoo garab joogsanayso in adeerka ah ina maxayga ah iyo hadda garab ku siinayo ku difaacayo oo xaqaaga kuusoo ridayo. gaashaan u hayso kuwaas baa lagu dhahay. gacalkaaguna waa xadhig aan go-ayn ee adkee. dadkuba geedaha la simane go-aanso midkaad jeclaato ama midkaad noqonayso. geeduhu waxay noo yihiin sida example oo kale. qof baad arkaysaa gob ah oo lagu hirto oo la hoos joogsado oo dadkao dhan wuxu tara oo wanaagsan. qof baad arkaysaa xumaan uu ka sheekeynayo oo dhiblow ah oo dulmiilo ah. haddaba geedaha nooc buu ka yahay. geed baa jira aanan la harsan, midho laga cunin, xooluhuna cunin, dhuxul laga shidan, wuxuu faa-iido leeyahayba jirin. qof baa sida geedkaayoo kale ah. geed baa weligiiba sida galoolka la sheego. galoolku abaar iyo dhibtii doonta hadday dhacdo waxaa la dhahaa galool gow lagama daayo, waa la garaacaa. waxunbaa kaaga soo dhacaya. midhihii waxunbaa ilahay kaaga soo ridi. caleen waxunbaa xoolaha xayawaanka uga soo dhacaysa. marka galoolka markasta example wuxuu yahay adkaysiga iyo faa-iida bixinta. dadkuna waa noocyadaa unbay midka yihiin. geedaha badan unbaad nooc tahay. haddaba wuxuu ku leeyahay dadkuba geedaha la simane go-aanso midkaad jeclaato ama midkaad noqonaysid. ma gob baa tahay, ma garas baa tahay, ma galool baa tahay, maxaa tahay, ma gumar baa tahay, kaa tahay. okay haddaba wuxuu kula go-aanso midkaad jeclaato. galool xididkiisu aasan oo waxba ma noqdo. xididkiisu uu aasan yahay noqo galool aan dhacayn oo markii la jabo isagu soo joogsado adag. galool xididkiisu aasan gobkuna midhihiisu dheefle. garas ku abaari garas kay abaari leecin. garaskuna markastay abaari dhacdo caleen unbuu leeyahay oo qurux badan akhtar unbuu yahay. gob iyo noqo midhaha fiican. haddaba geedaha geedka ugu fiican noqo. intanaan soo sheegna oo geedaha ugu fiican galool xididkiisu aasan noqo. galool xididkiisu aasan oo dadka waxu tara. gobkuna midhihiisu dheefle ama gob noqo midhihiisu dadka intifaacsadaan. garaskay abaari leecin ama sida garaskoo kale noqo marka meeshii dhibaata ka dhacdo adigu dadka waxu tara. gob iyo noqo midhaha fiican. haddaba geed haddaad noqon lahayd ood example geed ahaan lahayd, haddaba waxaad noqotaa geedaha ugu fiican noqo oo gob midhihiisu dheefle noqo. gundhoocada gaadmadeeda gocondhona way dhahaa. gundhoocana way dhahaa. gocondhada gaadmadeeda gomoodaha goysa ruuxa. gaxadh dibirada abuura. ha noqon gumar aan la quudan. afartan geedan soo sheegna waa geedaha ugu xun inta badan. haddaba kuwan example hau noqono geedahan soo socdo midkood ha noqonin. gundhoocada gaadmadeeda. gocondhadu geed xagga sare kaa turqayo de kugu dhacaya maahan. waa caleen yar ba ii ka baxdaa ama geedo yaryar kadib markaad socotida lugeysid kabaha ayay kugu dhacdaa.
haddaba gaad may kugu turqaysaa, geed kuusoo badheerayo de kugu dhacaya maahan. qof sidaayoo dadka gaada oo meesha halista ku suga, oo markuu qofku ka filayn inuu dhaawac ku dhacayo, dadka dhibaateeya dhaawac ha noqonin. gucundhadoo kale ha noqonin, dadka gaadmada ha ku dilin. gucundhada gaadmadeeda gomudaha goyso ruuxa, gaxadhkuna waa gucundhada geedkii ka baxday, gaxadh baa la dhaha. gaxadh dibirada abuur. geedka gaxadhka xoolo markay cunaan way dibiraan ama way boqoqaan, kadibna way qarxaan, waa la dalooliyaa neefkasuu naqas uga baxo. haddaba geedka ha noqonin xoolo markay cunaan ku boqoqayaan ama ku dibirayaan ay ku dhimanayaan. sidaayoo kale ha noqonin, qofkii kuu soo dhawaado ama qofka asxaaba kula noqdo ama qofka nolosha kula wadaago inuu dhib un kaa faa-iidin. ha noqon qof dhib un laga faa-iido. ha noqon gumar aan la quudan. gumar kuwa sida geedka haddara sheegayni, odaxdiisu waa odaxda ugu kulul, gumar baa ugu odax kulul. urtiisu way qarmoon tahay, oo geed aada u qarmoon. caleentiisa cidima cunto. hadhna malo, hadhkiisu geed la hadhsada maha, waa geed caleemo waa geed taagtaagan oo hadh male la hoos fadhiisto. dhuxul haddaad ka shiiti dhahdina dhuxul male, meelba kuma fiicno gumarku. haddaba ha noqon gumar aan la quudan. geedka gumarka meelba ka faa-iida lahayn ha noqon. example ha noqonin. midhaha goosiga ku fiican hadday cidi goosan weydo, gahayr bay kaa noqdaan. ha noqon gumar aan la quudan. midhaha goosiga ku fiican, midhuhu waqti bay bislaadaan oo waqtigooga gaadhaa. waqtigii midhuhu bislaadeen haddii la goosan waayo maxaa dhaca? way engegaan oo waxay dhaafaan waqtiga loogu talagalay. kadib waxa la dhaha gahayr bay noqdaan, way gahayreen, lama cuni karo, lama intifaacsan karo, way qalaleen. sida gacayradoo kale ama shankoxdoo kale, markay waqtiga u fiican tahay markay gaadho la cunayo, haddii ay dhaafto lama cuni karo. sida ubaxoo kale isku bedelaan ama dhadhan ma yeeshaan, ama waxay dhaafaan xadkii loogu talagalay inaan la cuno. marka midhaha goosiga ku fiican hadday cidi goosan weydo, hadday goosan weydo iyo intifaacsan weydo, gahayr bay kaa noqdaan, way engegaan, way qalalaan. ha noqon gumar aan la quudan. ha noqon haddaba gumar aan la quudan. waayo haddii aad dabeecad fiicnaan weydid, haddii dadku kula tacaamuli kari waayaan, waxaad noqonaysaa qof gahayr ah oo tacaamulkaagii baa xumaanayo. waxaad noqonaysaa qof aan la socon karin, oo weji lagula socdaba aan lahayn. xan, dulmi, qabiil iyo dhabarjeedin qof ka shaqeeya noqonaysaa. markaa gahayr baa noqonaysaa, qof aan lasidin, xarig lama sitaan oo kale noqonaysaa. tani waxaan ugu talagalay inaan kugu sheego qaabka nolosha u tahay ama giraan inay tahay. mar baan soo dulmari oo akrini. giraantu wareegto weeye, galabtu waarta maaha. guhaada habeen ma raagto, gudcurku mid joogta maaha. caddaa soo galalaysa, iftiin baa gaadha koonka. dharaar baa gebi daboosha, gawaarsi habeen dhibkiisa. habeenkii madowgiisina way daboosha. gaf kaa dhacay beri horeeto, mar buu gooyaa naftaada. garaadku markuu shaqeeyo, gobbay noqotaa arwaaxdu. gefkiyo xumahaa yaraada, farxad baa gebi hadhaysa. quluubta gargaarsanaysa, hibadu guluhu ku deeqo garaadkiia. markay garashadu siyaado, dadkaa gebi kuu sinaada. waxaad garataa ujeedka guluhu u abuuray koonka. qof kaa gaabsaday warkiisa, hamoodin inuu ku gooyey. gaax iyo uu xoolo haysto, agoonkaan garab la siinin. gargaar waayee silcaayey, mar buu gaadhaa hantiile. go-aanada kama dambaynta, guluhu gacantiisa geliya. gartaada mar buu hogaamin. gacal waa xadhig la goynin. xigtana gaashaan u haysaa. gacal waa xadhig la goynin, xigtana gaashaan u hayso.
dadkuba geedaha la simane go-aanso midkaad jeclaato. haddaba geedkaad noqonaysid ad imika go-aanso. galool xididkiisu aasan, gobkuna midhihiisu dhaafle, garas kay abaari leecin, gob iyo noqo midhaha fiican. haddaba waxaad noqotaa gob iyo midhaha fiican ee la intifaacsado. gucundhada gaadmadeeda, gomoodaha goyso ruuxa, gaxadh dibirada abuura. gucundhada gaadmadeeda, gomoodaha goyso ruuxa, gaxadh dibirada abuura. ha noqon gumar aan la quudan. ha noqon midhaha goosiga ku fiican. hadday cidi goosan weydo gahayr bay kaa noqdaane. ha noqon gumar aan la quudan. haddaba gumar ha noqonin. noloshaada gumar ha ka noqonin. cidna ay ku fahmayn, cidna ay kuu soo dhawaan karin. kii kuu soo dhawaadana dhib iyo uu kaa sheegto un iyo dhaawac. taa waxaan kusoo gabagabeynayaa maansada nagu talagalay ama nagu magacdaray giraantu wareegto weeye, ama giraantu waa wareegto. farxaddu waarta maaha. haddii waxaad adu example u qaadanaysaa, adood gashanaysaa meel kasti, giraantu wareegto weeye. farxadduna mid waarta maaha. ay murugadu sidoo kale mid joogta maaha. reeraynta iyo maalka iyo hantidu mid sii joogaysa maaha. faqriga iyo hanti la-aantu mid sii waareysa maaha. marka waa wax istaba wareegaya. waxaad arkaysaa nin muddo soo ahaa lacagle ama hantiile, muddada kalena faqiir oo dulmana ah. qof soo faraxsanaan jiray shalay tolana oo nolol qurux badan ku jiray, maantana murugaysan oo dhibaataysan. marka waa nolol giraana wax ku jira, way soo wareegaysaa. hadba mid bay kuu dhiibaysaa. nolosha caynkaasaan ku jirnaa. taasi waa tan jeclaa inaan nolosha kaagala hadlo, wixii nolosha ku saabsan aan kala hadlo, ama fahankayga ama wixii aan u arkay inaan la wadaagi karo. tani waa qiso, maansada kalena waa si qiso ah. magacayga waxaa la dhahaa dhembiil qosol laga dhambacay. dhembiil waan garanaynaa, waa dhembiishii dabka dee in yaroo dhibic kasoo duushay dabka waxaa la dhahaa dhembiil. dhembiishaas waxay ka timiday qosol. qof qoslay, dhembiil kasoo duushay ayaan ka sheekeynaynaa. dhembiil qosol laga dhambacay, oo laga dhambacad waxa waa laga soo jeexay. geedkaoo kale markii caleenta meedhaxda oo kale ama wax laga jeexo waa laga dhambacay, ama waa la kala dhambacay, waa la kala jeexay. haddaba dhembiishaas waxaa laga soo dhambacay oo laga soo jeexay qosol uu qof qoslay. bal qisadan ila dhegeyso. waxay ku bilaabmaysaa: dhembiili mar bay hortaa, dab iyo qiiq weyn dhashaa, dhib iyo qaxar geysataa, dhammaysaa qooman badan, dhir iyo dhurwaa gubtaa. dhembiishaasi mar bay ku dhacdaa meel kayn ah, ama meel tigaad leh, ama meel geeda leh, ama meel mara taallo. dhembiishaa yari waxaa dhici karta inay horto, ay weynaato, ay dab isku bedisho. dabka marbuu geedaha dhameeyaa, xoolaha gubaa, dadka gubaa, xataa dhurwaaga, xayawaanka, waraabaha, wixii nool oo dhanba dabkaas kayn weyn dabka hadduu galata uu dhammaynayaa. dhembiili mar bay hortaa, dab iyo qiiq weyn dhashaa, dhib iyo qaxar geysataa, dhammaysaa qooman badan, dhir iyo dhurwaa gubtaa. ay dhammaysaa. si baan idin dhinacu soo dhacdada waa cayn kale. ninkii dhuuxee fahmiye, ninkii dhagu raaracshow, dhambaalkan halayga qoro. haddaba dhambiishan aan u jeedo dhambiil runa maaha, waa dhambiil si kale ah. qaab kalan kuu dhinac tusoo inay dab iyo tahay iyo sheeko kalan kaaga sheekeeye. bal dhambiisha aan u jeedo hadda ila fahan waxay ka dhigan tahay. si baan idin dhinac tusoo dhacdada waa cayn kale. ninkii dhuuxee fahmiye, ninkii dhagu raaracshow, dhambaalkan halayga qoro. adigoo iska doohanoo dhib iyo aan nabur filayn, dhankaaga rarayn arlada, jacayl dhinaciisa xidhay, ayaad dhugataa xariir. haddaba dhambiisha halkan bay kasoo kici doontaa. adigoo iska dhoohan oo wax dhoohan ama mooge ah. dhoohanaanta waxaa ka wadnaa qof aan waxba ogeyn oo noloshaada iska wato oo islahayn. qof baad la hadli doontaa, qof baad isbaran doontaa, jacayl baad samayn doontaa, qof baad xiriir yeelan doontaa, adigoo islahayn
adigoo iska dhoohanoo dhib iyo aana burfilayn, dhaawac iyo qof qalbigaaga dhaawiciyo qalbigaaga wax dareema midna aanu sugayn, dhankaaga rarayn arlada, noloshaadan iska eryanay oo noloshaada iska wato, jacaylna dhinaciisa xidhay, jacayl iyo xidhiidh iyo arrinkaana ka baxay oo rajaynaynba inaad geshid, ayaad dugataa xariir, ayaad aragtaa qof xariir ah oo kaa samaysanaya jacaylkii. qof xariir ah ayaad dugataa xariir. bashar eebbuhu ka dhilay dhammaan wixii iina jiray, dhammaystiran gaari dumar, quruxii dheeraad u tahay, weliba dhalmagaal ahoo aqoon dhaadhiday mar hore. gabadh caynkaasaad aragtaa, bashar eebbuhu ka dhilay dhammaan wixii iina jiray, wixii iin bili-aadan iyo xumaan uu lahaa bili-aadan gabadh laga dhammaystiray, dhammaystiran gaari dumar, quruxii dheeraad u tahay, weliba dhammaystirnaanta iyo quruxda iyo sharaftaas waxaa usii dheer, qurux baa dheeraad u ah, quruxi dheeraad u tahay, weliba dhalmagaal ahoo aqoon dhaadhiday mar hore. gabadhaasi waa dhalmagaal, wax fahmayso, qof wax fahmayso, warimagaal qof marnoo qofdii wax fahmay oo aqoon leh, weliba dhalmagaal ahoo aqoon dhaadhiday mar hore, oo cilmiga aqoonna looba soo dhigay oo dhammaystay. allaa dherigana baxshee intuu dhalay geesi qaran, awowgeed taallo dheer ku dhigay magaciisa oo walaalkeed doobla yahay, u qira dhulka uu dilmuray. gabadhaa waxaan ka hadli doonaa aqoonteedii iyo sharafteedii iyo sida u ekeed baan kasoo hadalnay. iminka mansab ahaan cidda ay kasoo jeedo, maxay kasoo jeedaa? allaa dherigana baxshee, yacni xagga nasab iyo hantideeda haddaan ka hadalno, intuu dhalay geesi qaran, aabaheeda wada dhan oo qaranka lagu xuso, astaan qaran ah, awowgeed taallo dheer, awowgeegii aabahii dhalana taalluuba ku leeyahay, meeshuu ninkan uu ka yahay geesi qaran ka yahay ayaa isagana taallo dhan looga dhisay. awowgeed taallo dheer ku dhigay magaciisa oo walaalkeed doobla yahay, nin askariya de ama de ciidan oo magaca leh, u qiray dhulka uu dul maray. meel kastuu ninkan aabaheeda dul maray dhooblahaas ama askarigaas ama dee dariiska xidhan dhoobka leh, meel kastuu uu maray waxa u qiray, hebel baa maray, taariikhda qorta. dhambaalkaan soo dabre, sheeko dheer baa kaaga dheeri ayaan kaaga sheekeeyey. dhambaalkaan soo dabree dhex yartaan kuu sharixi, dhab aad u taqaana sabad oo ilaa dhalmadi taqaan. dhambaalkaan soo dabree dhex yartaan kuu sharixi, dhab aad u taqaana sabad, haddana isku dhowdihiin oo ilaa dhalnimadii taqaan. gabadhan aqoon horena waad isku leedihiin oo yaraantii baad isgaranaysiin. dhalaalka korkeygii iyo dhar iyo sharaf haba hadhe, dhalaalka ka baxaya gabadha iyo quruxda dhalaalkeyga iyadaa iskale, waxaa waaba sheekadeeda ha ka sheekeyn. dhar iyo sharaf haba hadho, dharkay xidhan tahay iyo labiska ay xidhan tahay, qaabkay u xidhan tahay iyo dharka quruxda ay xidhan tahayna waxaa iyadaa iskaleo lagama sheekeeyo. sharafna dee iyadaa iskale, saddexdaaba kama sheekeyn inuu ku dhahay. dhalaalka korkeygii iyo dhar iyo sharaf haba hadhee oo iyadaa iskale, markay dhoolaha furtaa qalbigu dhaafaa bartii rabbigu uu dhigay mar hore, dhimbiil ay kaa kacdaa, dhaqaaqdaa joogsataa. haddaba gabadhaas markaad aragtid, dhalaalka korkeygii iyo dhar iyo sharaf haba hadhee markay dhoolaha furtaa, keliya marka ay qosasho qalbigu dhaafaa bartii. haddaba qalbigii dhanaabaa dhaafaya bartuu ilaahay dhigay, qalbigu dhaafaa bartii rabbigu uu dhigay mar hore, dambiil ay kaa kacda. haddaba dambiilaa kaa kaca markay gabadha kuu qosasho. dambiilsa sheegayni waa dambiil jacayl, maaha dambiilshii dabka maahan. dambiil ay kaa kacdaa, dhaqaaqdaa joogsataa. mar laba tallaabo markaad qaadid baad joogsanaysaa, waad sii eegaysaa. dhaqaaqdaa joogsataa, mar baad diditaa in badan, dhulkaad yaro fiirisaa inay cidi dhowdaho, qosol baad yaro dhacdaa. haddana waxaad la dididaysaa, ma gabadhii hiblaaya kula hadashay, ma gabadha soo eg baad kula hadashay, waad dididaysaa, adigii baa isku maqan. dhulkaad yaro fiirisaa in meelaha qof ka dhow yaho, qosol baad yaro dhacdaa, waad faraxdaa, qosol baad faraxdaa. haddana waad dhimirsataa, dib baad isku soo kala garataa. mar kale dhoof baad gashaa, haddana waad dhooftaa, maskaxdaadii baa baxda.
adoo dhowr ubad lihiyo qoftoo kugu dhegan ayaa hortaada lasoo dhigaa. marka dhoofka shid maskaxdaadii aad la sheekaysatiin waxaabaad aragtaaba adoo dhowr ubad leh ay gabadhani kuu dhashay. waa isla tallaabadii weli gabadha way ku salaanta un. adoo dhowr ubad lihiyo qoftoo kugu dhegan ayaa hortaada lasoo dhigaa. dhacdaa socotee mar kale ayaad dhaayaha furtaa. waxaad dugataa mar kale adoon dhabadii dhammayn. waxaabad aragtaaba adigoo weli dariiqii socdo. maskaxdaadii baa baxday oo waxay kula tegtay heer gabadhii ay ciyaal kuu dhasho. dhowr ubad adoo le iyadoo kugu soo dhegan ee maskaxdaadiiba ka shaqaysiisa ay gaadhaa. ileen dhiman baa tahoo intoo loo dhacay qalbiga mid yare ay doonyataye dhul baa dhaqsa loo furaa. haddaba wuxuu ku leeyahay ileen dhiman baa ta qof dhiman oo maskaxdiisa kala dhiman tahay oo qalbigiisa loo dhacay. ileen dhiman baa tahoo intoo loo dhacay qalbiga qof yare ay doonyatay ay qaadatayba dhul baa dhaqsa loo furaa. wadnahaagii baa qalbigaaga is furaa. jacayl ninkaa kolka hore iska dhoohana jacayl buu qalbigaaga isku furaa. dhul baa dhaqsa loo furaa. dhaglayntu wadnuhu badsha. wadnihii baa dhaglaynta badiya. dhawaaq gudahaaga jira ayaa kaa dhura war kale. haddaba waad isla sheekaysataayoo qof kaloo kugu dhex nool naftaadiioo kugu dhex jirta ayaa kuu sheekaysa. sidan yaal sidan kale yaal sidan bay kuu salaanta maxay kale ahayd qof dambay ahayd way kula sheekaysataa. dhambaalka waxaan ku xidhay sheekadan iyo qisadan waxaan kusoo xidhayaa. dhambaalka waxaan ku xidhay dhimbiil qosol laga dhambacay. waa dhimbiil qosol laga dhambacay. dhimbiil qosol laga dhambacay ayaa hurtay oo dhabtii dhalaalisay ruuxda oo jacayl baan dhimanaya. dhankool si hurdiya ka go-ay dhammaan doonigii la rabay. qoftuna dhagaheygu xidhan. gabadha way salaantay oo iska socotay. sheekadan oo galiya waxaa ninka warmahaysaba. marka wuxuu ku dhahay dhambaalka waxaan ku xidhay dhimbiil qosol laga dhambacay. dhimbiil qosol laga soo gooyey ayaa hurtay oo dhabtii waxay ku dhex hurtay qalbiga intay ku dhacday hurtay weliba oloshay. ayaa hurtay oo dhabtii dhalaalisay ruuxda oo jacayl baan dhimanayaa. dhalaalisay ruuxda oo jacayl baan dhimanayaa. dhankoolsi hurdiya dhankoolsi waa darsasho. cuntadoo kale waxaa la dhaha u dhankoolsanaya ama u darsanaya. dhankoolsi hurdiya ka go-ay dhammaan doonigii la rabay. doonigii iyo cuntadii la rabay inaan cuno ayaan ka go-ay gabadhaa darteed. mar baan dulmaray sidii hore aan u dulmaray tii hore. qisadu waxay ku bilaabantay waa qosol. gabadh wiil oo qososhay. wiilkaa ay gabadhaa yaraan bay isgaranayeen. aqoon hore ay isku lahaayeen. mudday kala maqnaayeen. kadib maalin ay si kedisa isku arkeen. gabadha wiilkii markay kasoo horbaxday way salaantay. salaantii ay salaantay walal hebel ii waran iyo see tahay alxamdulilah las dhaafay. wiilkii xaaladda uu galay iyo maskaxdiisii waxa uu kaga shaqaysiiyey ayuu noo soo gudbinayaa. hadba wuxuu ka bilaabay dhimbiil qosol laga dhambacay. dhimbiil qosol laga dhambacay waa dhimbiishaas oo ka timiday qosolkii gabadha. dhimbiil qosol dhimbiili mar bay hurtaa. dab iyo qiiq weyn dhashaa. dhib iyo qaxar geysataa. dhammaysaa qooman badan. dhir iyo dhur waa gubtaa. si baan idin dhunuc tusoo dhacdadu waa cayn kale. ninkii dhuuxee fahmiye ninkii dheg u raaracshow dhambaalkan halayga qoro. adigoo iska dhoohanoo dhib iyo aan nabur filayn. dhankaaga rarayn arlada jacayl dhinaciisa xidhay ayaad dugataa xariir. bashar eebbuhu ka dhalay dhammaan wixii iina jiray. dhammaystiran gaari dumar quruxi dheeraad u tahay weliba dhalmagaal ahoo aqoon dhaadhiday mar hore. allaa dherigana baxshee intuu dhalay geesi qaran awowgeed taalo dheer ku dhigay magaciisa oo walaalkeed doobla yahay u qira dhulka u dulmaray. dhambaalkan soo dabree dhexyartan kuu sharixi dhab aad u taqaan nasabad haddana isku dhowdihiin oo ilaa dhalnimadii taqaan. dhalaalka korkeyga iyo dhar iyo sharaf haba hadhee markay dhoolaha furtaa. wadnuhu dhaafaa bartii rabbiga uu dhigay mar hore. dhimbiil ay kaa kacdaa dhaqaaqdaa joogsataa. dhimbiil ay kaa kacdaa
dhaqaaqda joogsataa, marbaa dhididaa in badan, dhulkaad yaro fiirisaa inay cidi dhowdaho qosol baad yaro dhacdaa, haddana waad dhimirsataa, mar kale dhoof baad gashaa, adoo dhowr ubad lihiyo qofta kugu dhegan ayaa hortaada lasoo dhigaa, dhacdaa socotee mar kale ayaa daayaha furtaa, waxaad dhugataa mar kale adoon dhabadii dhammayn. ilaan dhiman baa tahoo intoo loo dhacay qalbiga mid yare ay dhuunyataye, dhul baa dhaqso loo furaa, dhaglayntu wadnuhu badshaa, dhawaaq gudahaaga jira ayaa kaa dhuro war kale. dhambaalka waxaan ku xidhay dambiil qosol laga dhambacay, ayaa hurtay oo dhabtii dhalaalisay ruuxda, oo jacayl baan dhimanaya, dhankool si hurdiya ka go-ay dhammaan doonigii la rabay. intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa maansadeen maanta ugu talagalay labadii maaso. falcelintiinana waan jeclahay inaad ila soo wadaagtaan oo commentiga ila wadaagtaan. haddii wax dhaliila aad ii haysidna waan jeclahay inaan iska saxo. qofti anigu waxaan ahay wax baranaya. labadan maaso markaan tiriyey kadib adna waxaa lagu dhahay kadib markii aan dhowrkan maanse imika aan dul maray iyo kuwo kaleba iyo qaarkood heeso markii aan bulshada la wadaagay, ama hal abuurada ama fanaaniinta ama abwaaniinta adoo dadka fanka ku abtirsada markii aan la wadaagay, qaarkood waxay dhaheen abwaan ama abwaannima kugu soo jirto. aniga oo taa kasoo horjeeda oo abwaannimadii diidan, aragtidayda abwaannimo ayaan haddana tan kaga hadli doonaa iyo sidan anigu abwaan u arko, iyo aniga abwaannimadu halkan kala taagannahay. haddaba cinwaan waxaan uga dhigay abwaannimo weli ma gaadhin. abwaannimo weli ma gaadhin, abkayguba erey ma qeexo, tix iyo maansada ma tiriyo, annana 10 tuduc ma dhaafshe, abwaannimadayga daaya. rag badan waxaa jira asxaabtay oon ku bahownay dhinaca hal abuurnimada ayaa inta badan abwaannimo igala dhamaa waaye. aniguna anoo taa kasoo horjeedo oo u qeexayo abwaannimadu waxay ka dhigan tahay iyo inaan abwaan gaadhin ayaan halkan ugu tiriyatan. marka abwaannimo weli ma gaadhin, abkayguba erey ma qeexo, abka aan kasoo jeedana cidda magac kule cid afarey tiriso waa la maqlay, laakiin cid maanta magac weyn ku leh oo xagga suugaanta iyo lagu yaqaano ama gabay ama maase inta badan tiriyo oo toos aan ugu abtirsado ma maqal. way jiraan kuwa dee familku ballaaran yahay wax tiriya way jiraan. aayaha noloshaa adkaaday, abkayguba erey ma qeexo, tix iyo maansada ma tiriyo, labada midna ma tiriyaan, mid tix tiriyana ma arag, mid maansan tiriyana ma arag, annana 10 tuduc ma dhaafshe, abwaannimadayga daaya. aniguna haddii aan wax isku dayo, wax abuuro ama waxaan isku tijaabiyo, wax 10 tuduc dhaafo ma gaadhsiiyo, ee abwaannimadayga daaya. waa raggii saaxiibaday ahaa. aayaha noloshaa adkaaday, araar yar haddaan ku qeexay, haddaan afarey ku tiriyey, araar yar haddaan ku qeexay, haddaan ulashada bogayga, haddaan afarey ku tiriyey, abwaannimo weli ma gaadhin. nolosha adkaatay iyo lase dhibaatada taagan iyo isbeddelka nolosha aan kasoo sheekaynay darteed, haddii aan araar yar oo afarey ah ama maanse yar haddii aan ku hal abuuray ama aan ku cabiray, ama wuxuu qalbigaygu dareemayo, ulashada bogayga uu qalbigaygu dareemaya haddii aan dadka la wadaagay, ama aan tix yar ka tiriyey, abwaannimo kuma gaadhin. afarey abwaannimo laguma gaadho. marka abwaannimadayga daaya. abwaan anigu waxaan u arkaa ninka soo socdo, aftahankii aragti dheer leh, aqoon diin iyo aqoon leh, asalkiiyo dhaqan yaqaanka, alkuma suugaan dhammaanteed, abwaannimo dhaxal u yeeshay. aftahankii aragti dheer leh,
ninka aftahanka meel markuu soo joogsado balaaqale dadka ka dhaadhiciya wax aqoon diin iyo adduun leh, mid diin iyo adduunba nin dadka wax uga sheegi karaa. asalkii dhaqanyaqaanka xaggii laga soo abuurmay iyo dhaqankii ninka yaqaana dhul, dad, ban, buur, nolosha oo dhan qofku markii wax laga weydiiyo wax uga jawaabi karaa. asalkii dhaqanyaqaanka ninka ah ayaa ani aragtideeda abwaanka alkuma suugaan dhammaanteed, suugaan oo dhan ninka wax ka tiriya, gabay ha noqoto, maansadii, heesi waata ugu liidato markii suugaan la eego, shiribkii, buraanburkii, wixii oo dhan ninka wax ku tiriya ee ku soo bandhiga ayaa abwaan ah, ee qaabkii suugaan loo dhigayo oo dhan ninka u dhiga. ummad hagihii tilmaama, ujeedkiisana ku qeexa, ilhaaminta eebba siiyey, isagoo u adeegsan maanso, albaabada saxan u sheega. ninkaasa abwaana. ummad hagihii tilmaama, ninkan waa nin ummadda wax u sheega. dhib baa soo socoto, dagaal baa soo socdo, nabad baa jirta, barwaaqaa jirta, ninka dhihi kara ee bulshada u sheegi kara. ummad hagihii tilmaama, ujeedkiisana ku qeexa, isagoo hadal caadiya maaha, wuxuu u marayaa maanso ama gabay ama tix, waxay doonta ha noqoto, isagoo u tirinaya ayuu dadku nabadaynayaa, dad isdagaallo ku heshiisiinayaa, abaar soo socota uga digayaa, barwaaqadii nimcad lagu jiro wuu sawirayaa, caroosyada iyo farxadda ayuu kagala qayb qaadanayaa. haddaba ninkaas ayaa abwaana ah. ujeedkiisana ku qeexa, ilhaaminta eebba siiyey, oo aragtidiisa dheer uu ilaahay ilhaamin ku siiyey, isagoo u adeegsan maanso, albaabada saxan u sheega. ka xumaanta ka hadla maaha, abwaanku dadka isku dira maaha, abwaanku dadka war kala qaada maaha, abwaanku waa ka dadka ku waaniya dariiqa saxdaa. abbaarkiyo erey hufnaanta, abeer suugaan ku naaxay, aqoonsaday xeerarkeyga, abkuu doonana u tiriya, ahey abwaanku weeye. abbaarkiyo erey hufnaanta, ninkan markuu ereyada soo qaadanayo iyo markuu gabay tirinayo, markuu maanso tirinayo, markuu hees tirinayo, ninka qaabka uu abuurayo aad ay u sawir qurux badan yihiin ama dadka uu aad u saameyn karo. ninkaas abbaarkiyo erey hufnaanta, siduu u abbaarayo, siduu u bilaabayo, abeer suugaan ku naaxay. abeerka inta badan waxaa loo isticmaalaa qof da' gaadhay inta badan, ama geela markuu da' gaadho ayaa abeer la dhahaa. marka adugu qof suugaan kusoo dhex ayaan is leenahay. abeer suugaan ku naaxay, aqoonsaday xeerarkeyga, abkuu doonana u tiriya, ahey abwaanku weye. abwaanku waa kaas. waxaa weli kasii daba tegayaa abeer suugaan ku naaxay. abeerka waxay inta badan u badan tahayna loo isticmaalo wax da-ah, ha noqoto geel, ha noqoto dad. inta badan gabadh abeeraan maqlay, ama hal abeer, ama hal aan weli dhalin oo abeer ah. adu waa qof suugaan ku naaxay. markaan anaku sawirana abwaankuna lab iyo dhidig kama hadlayno, oo ma dhihi karayno abeer waxaa loo isticmaalaa dhidig, maxaa laba u isticmaasha. abwaanku wuxuu noqon karaa lab, wuxuu noqon karaa dhidig. daruuri maaha inuu abwaanku noqdo inuu noqdo. marka qof abeer oo da ah, halkaa da-dii baan sheegaynaa. abwaanka da-yaraan laguma noqdo. qofka da-yar wax badan baa ka dhiman. waxaa ka dhiman dhaqankii, dhulkii oo dhan, dabeecadii dadku u nool yahay, taariikhihii hore oo dhan. marka wuxuu abuuro ama wuxuu bulshada la wadaago waxaa ka qiimo badan ninka da ugu jirto ee dhaqankii iyo garanayo wixii laysla soo maray. marka waa qof suugaanta da ku gaadhay oo da ah, da-diiba halka ku jirto. abbaarkiyo erey hufnaanta, abeer suugaan ku naaxay, aqoonsaday xeerarkeyga, abkuu doonana u tiriya, ahey abwaanku weeye. haddaba nin xeerasheeda garanayo oo
suugaanta oo dhan tirin kara ayaa abwaan la dhahaa. Abkuu doonana u tiriya, qaabkii uu rabana u tiriya, shirib u tiriya, gabay tiriya, maansa tiriya, guurow tiriya, wixii suugaan oo dhan. Heelladu waa tiriya, maqalay adig intii godad ay lahayd xeerasheedii ninka yaqaana. Heesaha aan anagu maanta dadka abwaanku ku dhawno, heesuhu waxay ahaayeen waxa ugu liita ay tiriyaan dumarku iyo ciyaalku. Heesaha ama qofka hees hawleedka oo kale ayaa loo tirin jiray berigii hore. Laakiin zamankan maanta nool nahay, heestii ugu liidatay ee ugu fududay ayaa ah ka sarreysa suugaantii oo dhan. Waayo dadka wax fahmaya ayaa yar. Dadkii dhegaysanayay maanta, nin gabay dhegaysanaya uu yaryahay, nin gabay wax ka fahmaya uu yaryahay. Laakiin heesta iyo miisigaas waa la wada dhacsan yahay. Marka abwaanadii oo dhan waxay awoodda saareen inay heesa wada sameeyaan oo loo tartamo. Hebel hees buu sameeyey, hebel hees buu sameeyey. In lagu qiimeeyo qofka abwaanka heestuu sameeyey, muxuu abwaanku yahay heestuu sameeyey. Marka horena heestu waxay ahayd waxa ugu liidata uu abwaan tiriyo. Abkuu doonana u tiriya ahay abwaanku weeye. Awood xeeldheeri ruux leh, awood xeeldheeri ruux leh, alluhu xikmadnimo u dhaliyey, alluhu xilkasnimo u dhaliyey. Aqoon xeeldheeri ruux leh, alluhu xilkasnimo u dhaliyey. Indhaha ku arkaya meel fog, aminada iman qiyaasa, ogaan kara kuyna dhaafay. Inta ugu muhiimsan way tan. Awood xeeldheeri ruux leh waa qof meel fog wax ka arkaya. Alluhu xilkasnimo u dhaliyey. Xilkasnimo markaa leena waa qof wanaagga ka hadla oo inta badan xumaanta ka hadal. Abwaanku maaha ninka cawrada dumarka ku sheega heesaha, maaha ninka xumaanta ka sheekeeya, sidan baan kugu samayn lahay, sidan baan odhan lahay, sidan igu samee. Ninkaas u dhiiba dumarka maaha. Awood xeeldheeri ruux leh, alluhu xilkasnimo u dhaliyey. Indhaha ku arkaya meel fog. Xilkasnimadaas markaas waa qof tacafuf leh oo xumaanta aan ku dhiiran, wax xumaana qof aan wax ka tirin. Indhaha ku arkaya meel fog, sanadada soo socda iyo cimilada isbedeli doonta iyo nolosha si isku bedeli doonto, qofka wax uga sheegi kara bulshada. Ogaan kara aminada iman qiyaasa. Amin waa waqti. Aminada iman qiyaasa, waqtiyada soo soconaya qofka qiyaasi kara ee 5 sano soo socoto, waxa uga sii sheegi kara bulshada iyo wixii isbedeli doona. Ogaan kara kuwiina dhaafay, samanadiina dhaafay, qarniyadiina dhaafay, sidii loo noolaa. Qofka u sawiri kara qofka hadda nool oo ka dhaadhicin kara saabaa loo noolaa, dadku saan bay u noolayeen. Ninka suugaan ugu macnayn kara gabay, ugu macnayn kara hees, wuxuu rabo ugu macnayn karo. Gabay, guurow, shirib, wuxuu doona ugu macneeyo. Ninka wixiina tegay qarniyadiina dhaafay, dadku sida u noolaayeen iyo wixii ka jiray, ninka ugu macnayn karo aminada iman qiyaasa, ogaan kara kuyna dhaafay. Markuu amos soo higleeyo, amos waxaa la dhahaa waa abaar hadaafa ama balaayo oo abaarta ka sameyn tahay. Markuu amos soo higleeyo amaba aafadu dilaacdo, agaalidu meerad gaadho, cirkuna fura iba galoobo, galool xididkiisu oomo. Intaayo bala markay dhacdo, masiiba markay dhacdo, waa ninka dadka wax uga sheego. Markuu amos soo higleeyo, markay abaartu waa markii la waayo cirkii abaarta jebin lahaa ama xagaaga jebin lahaa. Haddaba xagaagii haddana cirkii kale kusii xigi lahaa. Intaa dhan markii la waayo waxaa jira amos waa qiiq abaarta ugu xun oo dhacaysa. Markuu amos soo higleeyo amaba aafadu dilaacdo, aafadu waxay noqon kartaa dagaal. Aafad dagaal waa dhici karta, xanuunay noqon kartaa, colaad bay noqon kartaa. Aafo ama masiibo amaba aafadu dilaacdo, agaalidu meerad gaadho. Agaalidu waa waqti markay meerad gaadho la waayo. Agaalidu meerad gaadho, cirkuna fura iba galoobo. Cirkii markuu fura iba galoobo, yacni cirkii soo di'i lahaa ama roobkii se u taqaanid lahjadu kala duwan yihiin.
waqtiguu soo di'i lahaa ama naxariista aan la iman lahayd markay di'i weydo u fura ibagaloobo, furihii ay ibihiiba fura galeen, fura ibagaloobo, cirkuna fura ibagaloobo. markay agaalidu meerad gaadho, cirkuna fura ibagaloobo, galool xididkiisu oomo. galoolka inta badan hadallada waaba soo celcelinaa, maan sidii hore noogu jirtay. galoolku intaan maqlay waa geedka ugu adkaysi badan, xididkiisuna aada buu u dheeryahay oo ma qalalo malahay, saasaan malaynayaa, waxna ma noqdo. galoolkii ugu adkaysiga badnaana marka uu xididkiisu oomo, uu haraado, uu qalalo, dhibaato caynkaasa markay jirto, abwaankaa aragtidiisa allayleha gabay dareersha, eegay guurow ku baaqa, agah iyo shirib bayaansha, abaar imanaysa sheega. haddaba abwaanku waa saas, aragtidii dheereyd markuu arko isbedelkaas iyo cirkaa di'i waaye, fura ibagaloobay, galoolkoo xididkiisu oomay, agaalidiioo meerad gaadhay, aafadii oo ballaadhatay markuu arko, abwaanku waa ka wax ka fahma ee u sii sheega waxa iman doonaa, ee dhaho abwaankaa aragtidiisa haa allayleha gabay dareersha, markaasuu gabay u gabiyaa, eegay guurow hadduu doono ugu sheegaa, eegay guurow ku baaqa, agah iyo shirib dareersha, shiribkiibuu markaa ugu sheegaa. qaabkay fahmayaan, abaar imanaysa sheega, isagaa abaarta soo soconaysa dadka u sheega. markay dantu aarsi gaadho, aarsigu waa marka qof lagaa dilo ama qof kale kaa dhibaateeyo aad kasoo aarsanaysa. markay dantu aarsi gaadho, arxan xume geesi dooxo, colaadi abaabulmayso, agabkiyo waran la daarto. ninka wuxuu ku dhahayaa markuu dantu aarsi gaadho, marka qof ama dagaal uu socdo, qof dili looga aarayo, arxan xume geesi dooxo, nin geesi ahaa markuu dooxo, mid xuno damiin ahaa ula dhuunto uu abley ku dilo, colaadi abaabulmayso, marka habar yeedho laysku urursanayo, nin kastiba ninkiisii iyo hubkii la urursanayo, colaadi abaabulmayso, agabkiiyo waran la daarto. agabku waa qalabkii lagu dagaalgalayay, sida gaashaankii, warankii, qorigii, balaayadii, wixii dagaal lagu galayo dhan, agabkii markii la diyaarsado, agabkiyo waran la daarto, abwaankaa qayla dhaansha, amaba uga digo colaada. abwaanka markaa ku dhifta gabaygiisii iyo guurowgiisii iyo shiribkiisii iyo wixii uu bulshada ku fahansiinayay ayuu ku dhiftaa. markaas uu leeyahay joojiyo colaada, dagaalka hala joojiyo, hala xaliyo, haddii uu dad inuu soo ururiyo rabo iska celiya dadka uu leeyahay, hadba qaabka uu rabo isagaa dadka markaa ku kiciya, ama uu ku dejiya, uu ka joojiya dagaalka. haddii doonana sida xun baa loo isticmaalaya, wuxuu noqdaa mid dadka isku kiciya oo dagaalada abuura. aroos wacan ililiglaynta, ayaamaha khayrka sheega, aftahankii aragti dheer, amaba aroos wacan ililiglaynta. marka aroos, inta imika abwaanadu way leeyihiin, waa xabadda keliya abwaanada u hadhay. inta horen soo sheegnay way yar tahay nin abwaana wax ka tiriya. abwaanadu imika waxay wax ka tiriyaan aroosyada, xafladaha, waxay gagaaban. aroos wacan ililiglaynta, ayaamaha khayrka sheega, aftahankii aragti dheer. dhulku markuu barwaaqo yihiin, nimcad yahay, aftahankii aragti dheer, ammaan gabadh loo hibeeyo. marka imika garbahay ammaanaan, aroosyada garbahay ammaanaan, hiblaayo sidan baa tahay, timahaaga sidan u dheer, sankaaga maxay balaayadaada sidana, waxaasay tiriyaan. marka aroos wacan ililiglaynta, ayaamaha khayrka sheega, aftahankii aragti dheer, amaba ammaan gabadh lagu hibeeyo,
abwaanka tiriye heeso halkaasi ku jiraan. wixii hore gabay iyo maansi iyo guurow iyo balaayaa kusoo qaadayni, laakiin iminka halkan heesu waxay soo galaan meelaha caroosida, farxadda, xafladaha, waqtiyada gaagaaban. aftahankii aragti dheer, ammaan gabadh loo hibeeyo, abwaanka tiriye heeso, ammaan abwaannimo gaadhi maaye, anigayga kula hadlayo, abwaannimo gaadhi maaye, abwaannimadayga daaya. asxaabtaydii waan la hadlayaa qaaliga ahayd ku buhownay dhinaca fanka ama hal abuurnimada. haddii aad dhowr cishay u dhahday abwaan, haddaba waxaan ku leeyahay waa kan abwaanku, waa ninkaasaa abwaana, aniguna ma gaadhayo. oo intaa aan soo sheegnay quality ama sifooyin qurux badana meesha kuma hayo. marka asxaabtayda sidaasa ku dhahaya. mar baan soo dulmaray, waxay ku dhahayaa sida tan. magacayga waxaan dhahnay abwaannimo weli ma gaadhin. abwaannimo weli ma gaadhin, abkayguba erey ma qeexo, tix iyo maansada ma tiriyo, annana 10 tuduc ma dhaabshe, abwaannimada iga daaya. aayaha noloshee adkaaday, araar yar haddaan ku qeexay, haddaan ulashada bogayga, haddaan afarey ka tiriyey, abwaannimo weli ma gaadhin. aftahankii aragti dheer leh, aqoon diin iyo adduun leh, asalkiyo dhaqan yaqaanka, alkuma suugaan dhammaanteed, abwaannimo dhaxal u yeeshay, ninkaasa abwaana. ummad hagihii tilmaama, ujeedkiisana ku qeexa, ilhaaminta eebba siiyey, isagoo u adeegsan maanso, albaabada saxan u sheega. abaarkiyo erey hufnaanta, abeer suugaan ku naaxay, aqoonsaday xeerarkeyga, abkuu doonana u tiriya, ahay abwaanku kaas. awood xeeldheeri ruux leh, alluhu xilkasnimo u dhaliyey, indhaha ku arkaya meel fog, aminada iman tilmaama, ogaan kara kuwiina dhaafay. markuu oma soo higleeyo, amaba aafadu dilaacdo, cirkuna fura iba galoobo, galool xididkiisu oomo, abwaankaa aragtidiisa, allaylehe gabay dareersha, eegay guurow ku baaqa. abwaanka aragtidiisa, allaylehe gabay dareersha, eegay guurow ku baaqa, agah iyo shirib dareersha, abaar imanaysa sheega oo ummadda guddiga. markay danto aarsi gaadho, arxan xuma geesi dooxo, colaadi abaabulmayso, agabkiyo waran la daarto, abwaanka qayla dhaansha, amaba uga diga colaada, abwaanku kaas. aroos wacan ililig laynta, ayaamaha khayrka sheega, aftahankii aragti dheer, ammaan gabadh loo hibeeyo, abwaankaa tiriye heeso, abwaannimo gaadhi maaye, abwaannimadayga daaya. asxaabtaydii aadayd mahadsantihiin. kulley waxaan nila wadaagi doonaa maansooyin kaloo cusub. hadda kuwan hordhac ay iga tahay. hordhacaana waxaan jeclahay inaan asxaabta aan gaadhsiiyo ama aragtidayda halkan ayaan kusoo qadimi doonaa. kulley pagekaad ku xidhan tahayna ama youtube-kaad iga daawanaysidna waa axmed xirsi. subscribe-kii flowgu waa ii muhiim, inaan asxaab badan gaadho ay igu xidhmaanna waan jeclahay. halaysoo taageero dhinacaas waan iga codsanayaa. kulley xagga fanka haddii laga hadlo, fanku aad buu iskaga dhib badanya waqtigan maanta. dhowr arrimood markii loo eego, waxaad arkaysaa qof abwaan ah ama hal abuur ah
oo wuxuu uu tirinaya aad ka yaabtid, laakiin hadalkiisu uu meel gaarin, la jiifo oo barkan. sidoo kale waxaad arkaysaa qof aanan u qalminba abwaannimada iyo hal abuurnimadaba u qalmin, oo fanaaniinta ku xidhan, oo hadalkiisu uu meel gaaro. taana waxaan u sababeyneynaa amaan u aaneyneynaa dhowr arrimood. waa ta koowaade, fursaddu dadka ma wada sinto. waxaa dhici karta qofkan aan leenahay abwaannimadu uma qalmo ama hal abuurnimadu uma qalmo, codkiisuna meel dheer gaadhayo, waxaa dhici karta fursadahu uu haysto inay ka qaalisan tahay ama ka badan tahay qofkan kale wuxuu haysto, oo fursado ah. fursadihiisa yar. fursad uma haysto inuu abwaan la kulmo kale, fursad uma haysto inuu fanaankii isaga ishelaan, fursad uma haysto inuu soo bandhigo aragtidiisa oo bulshada lasoo wadaago. taana waxaa leenahay fursadda ama opportunity-ga qofku haysto ayaa dadka kale sarreysiisa. ta kale, haddii aan u imano qofka fanaankaas, muxuu isaguna abwaanka ka hadale, fanaankuna isaguna siduu ku horumari karaa, siduu noqon karayaa qof toob ah 10 sano haysta sarreynta xagga fanka. iminka inta badan xagga Soomaaliga marka la eego waxaa jira Xasan Samatar baa jira, qof siduu u soo baxay un ku socday oo level saroon haystay sanadadii ugu badnaa. sidoo kale waxaa la sheegaa Cawaale waa sidoo kale isagana waa siduu ku soo baxay ilaa imika yani hoos u dhac way yar tahay inta lagu arko. inta kale kasoo hadha inta badan way jiraan fanaanin aada u qaaliya oo weli hadda iyaguna top ku socdaa, weli dee waqti u baahan yihiin si loo qiimeeyo inay saa kusii wadayaan inay hoos u dhac ku yiman doono. fanaanin kale waxaa jirta iyaga waxaa ku yimaada madaxay la soo kacayaan, in yar bay joogeen haddana hoos bay galayaan, kadib haddana madaxay la soo kacayaan, in yar bay joogaan, ma sii karayaan sii socodkii ama adkeyntii. laba arrimood baan arrinkaana u sababeyneynaa inay ugu wacan tahay. qofkani markasta xagga sare joogayo maxaa ka duway kan madaxa intuu la soo kaco oo caan noqdo haddana hoos galayo? waxa ugu wacan waa aragtidayda. aragti kalena way jiri kartaa inay ugu wacan tahay. aragtidayda saan u arko, qofku haddii uu dhadhamiyo ereyada uu qaadayo ama macnaha ay sameynayaan, hadduu iska eego oo wixii loo keenay intuu eego wixii ka meel maraya isaguna bulshada uu la hortago, waa kow, wuxuu noqonayaa qof xagga sare markasta toob ah. ta labaad, fanka hadduu hunguri kaa galo, fanku hadduu hunguri kaa noqdana madaxaada soo bixi, kadibna waa dhici kii lacag ma ka wadaa. ninkii daba orda fanka u daba orda si hunguri ana meel dheer ma gaadho, madaxa la soo baxaa, kadibna wuxuu noqdaa fanaan aroosada meelahaas looga yeedhaa, kadib magaciisu taariikhda saas uu dabar go-a. way ku adkaataa marka dambe inuu heeso soo saaro. kuwo waxaa jira charism, waxay leeyihiin kuwo aan laga bixiisa dhacayn, sababka Cawaale oo kale, haddii aroos kaaga heesanaa waa isla toobkii uun, haddii uu xaflad ku joogana waa isla toobkii uun, haddii marka isaga waaba hibadu ilaahay siiyey iyo jinniyada ku jirto iyo luuqdiisii iyo miisigu isagu dooranayo, weliba doorashada qofku markuu isagu choice ka leeyahay, laxanka uu dooranayo, laxanka uu bulshada ka gadi karaya isagaa garanayo, miisiga sidoo kale miisigu bulshada ka gadi karaya isagaa garanayo, ereyada. marka qofkaayoo kale hadduu leeyahay qofku fursado, hadduu leeyahay awoodo badan oo sidii laxankii oo ah laxan tayala hadduu saaranayo, hadduu miisig tayala uu saaranayo, ereyadu muhiim ah markaas bas qarinayaan. waxaas qarinayo intan awoodood ee meesha ku jirta, laxankiisiibaa daboolaya jajabka ereyada, ama ereyo fiican hadduu helo ereyadu waxay daboolayaan jajabkii miisiga. marka muhiim maaha qofku inuu uu wada helo ereyo fiican, markaa kale isagaaba qarinayaba luuqdiisii, laxankiisii iyo miisigiiba waxay qarinayaan ereyadu qofkaas ee muhiim ahan. markaas wuxuu doona ku qaadi karayaa, wayna gadmi karaan, magacna uu ku yeelan karaa, qofkana qof heesihiisii la xiiseeyo noqonayaa. haddaba taladayda
dhalinyarta hadda soo kacayso fanaaniinta ah, haddii aad rabtid inaad magaca fanka ku dhex yeelatid ama aad sii jirtid oo aad ten topkaad ku jirtid, waxaad ka fogaataa ereyada. horta kow ereyada aad qaadaysid ilaa ood iska eegtid oo dhadhansatid oo wixii ku jira, wixii jaba, wixii meel macna aan gaadhin, maadaama aad adiguna waxa marka bulshada lasii wadaagtaad magac ku yeelanaysid, inaad ereyada horta u fiirisid waa kow. ta labaad laxanka iyo muusigana inay noqdaan kuwa u qalma ereyadan oo kala soo saari kara. waa taladeydii. qofka fanaankaasi inuu ka madax banaanaado ereyada iyo muusiga laxanka cidda saareyso. haddii aad adigu de laxankaagu uu ahayn laxan waaliya oo de loo horto haduun ahayn, inaa laxanka lagu saaro qof kale inuu kaa madax banaanado uu saaro. musiga qof kaa madax banaan inuu tumo, labadaaba inay kaa madax banaanaadaan. haddii kale adaa is cajabinayo wax aan quality lahayn ayaa dadka la hor iman, magacaagana saas ayuu ku baabiye. marka wixii lagula arko qof kale kula arko kusoo qanco inuu qurux badan yahay ayaa markasta dadkii kalena qancinaya. marka ha kaa madax banaanaadaan ereyada iyo laxanku. haddaad adigu top ahayn oo de laxanka aad saartid uu de wax kale ahayn, waa taladeedii kale. xagga hunguriga, qof kasta wuxuu u baahan yahay hanti inay wax ka soo galaan. qof kasta wuu daalayaa. inayna noqon main reasonkaaga weyn dee aad ugu jirta fanka inaad lacag un ka samaysid. horta fankana waxaa laga dhaxlaa waa magaca. iminka sibankan maanta waxaa bedeliya qolada youtuberada ayaa maanta lacag ka sameeya saraaxa marka laga hadlo, oo ka badan wixii marka hore laga sameyn jiray. waad qaadan kartaa lacag muhiim, ceeb maaha, oo waad shaqaysanaysa, waa shaqadaada waxan. laakiin ha ka dhigin hadafkaaga dhane weyn inaad lacag u wada noqoto. waa taladii walaalka. waad iga qaadan kartaa, waad igaga soo horjeesan kartaa, muhiim maahan. waxaan usoo galaynaa laysoo weydiiyey xagga raabka. waxay dhaheen raabku ma soomaali maha mise maahan. raabku inta badan waxaa la sheegaa inuu nooga yimid xagga reer galbeedka, laakiin anu saan dareemayo ama si aan dhadhansaday inuu raabku fanka soomaaliga qayb ka mid yahay oo ceeb ahayn. sharma boy-na uu yahay ninkaan maanta anigu u arko iyo rag kaleba inay ereyadoodu mararka qaar ay ka qaalisan yihiin heesi kale classigaaba, inay ka qaalisan yihiin. dhiirigelin ha noqoto, fanka soomaaliga dhiirigelintu aad ba ugu yar tahay. qof inaan lala hadlo hore u soco la dhaho, ha kicin, ha kufin, ha leecin, ha jabin, ina qof lagu dhahana way yar tahay. marka mararka qaar ereyadiisa markaan eego iyo macnaha uu gudbinayo, waxaan dhahaa fanka kaleba ereyada kale dadka kale sameeyaanba isaga ayaa ka qaalismaan dhaha. ha isku yardayo inuu ereyadani soo galaan, inuu raabku fanka soomaaliga soo galo. waxaa jira horta ereyada soomaaliga heesta waxaa laga sameeyaa ciyaarihii hore ama dhaqanka ama ciyaalkii wixii lagu maaweelin jiray. haddaba waxaa jirta hees baa jirta ama godad baa jira ah, yartu yarta ma iska dhowda, tuudha taadha may tiraado, timahalooli may tiraado. yani raab waxaa jirta ciyaar dhaqameed qaabkaas ah. qaabkaana waa raab. raabkuna waa fanka soomaaliga, waa qayb ka mid a. ha la soo dhaweeyo, dhinac wanaagsan ha loo isticmaalo. inta badan bootayn iyo dagaal iyo maxay saama kugu sameynaya ku diliya maxay baa ku jirta, laakiin dhinac wanaagsan sida dhiirigelinta oo kale, sida aan ku leeyahay maslax iyo sharma boy oo kale, heese dhiirigelina markay soo gashaan aad baan u jeclahay. fanka soomaaliga inay ku jiraanna waa muhiim. inta ayaan kusoo gabagabeynaya asxaabay.